wasaaradda amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay qodobo degniin ah ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland. wariyahayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Rayali ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku xustay in aysan aqoonsan doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashada Jubbaland haddii aan la fulin qodobo dhowr ah oo war-saxaafadeedka lagu xusay. warkan qoraalka oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa 3 qodob lagu hordhigay maamul goboleedka Jubbaland, waxaana qodobadaasi ay kala ahaayeen in odayaasha soo xulaya xildhibaanada la waafajiyo diiwaanka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, in marka hore la soo bandhigo xildhibaanada Jubbaland isla markaana ay iska dhex doortaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland, iyo in doorashadu ay u dhacdo si madax bannaan oo cadaalad iyo weliba xorriyad ku salaysan. warkan qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli ay jiraan tabasho iyo cabashooyin badan oo ku aadan musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay doonaysaa in arrimahaas oo dhan ay noqdaan kuwo ay xal u hesho. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu dadaal xoogan ugu jiray sidii doorashada Jubbaland ay noqon lahayd mid la waafajiyo shuruucda doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada. maamulka Jubbaland ayaana la aaminsan yahay in uu doonayo in gacan xoogan uu ku kontaroolo doorashada Jubbaland, taasi oo cabasho fara badan ay ka muujinayaan qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka iyo Gado. doorashada Jubbaland ayaa waqtigeeda laga baqayaa inay dib u dhacdo iyadoo ay soconayso abaabul xoogan oo lagu jiro in doorashadaasi si wanaagsan ay u dhacdo. dowladda Soomaaliya mar kale waxay wajahaysaa culeysyo kaga imaanaya maamulka Jubbaland, taasi oo ah in dowladdu aysan faragelin iyo saameyn ku yeelan doorashada Jubbaland, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha iska soo daba saaraysaa qoraallo kala duwan oo dhammaantoodba isku mid ah kuwaasi oo looga hadlaya nidaamka doorashooyinka Jubbaland. Cabdicasiis Rayali, Somali Cable, magaalada Muqdisho.